assalaamu calaykum kusoo dhowaada iftiinka waayaha maanta waxaan idin wadaa muuqaal xiiso badan. muuqaalkan wuxuu ka kooban yahay 10 su'aal oo aad ku tijaabin doonto garaadkaaga iyo sida aad ugu fiirsato, waxayna isugu jiraan sawiro iyo su'aalo caadi. haddaba waxaa laga yaabaa inaad ka jawaabto su'aalaha qaar, sidoo kale waxaa jiri kara kuwo aad ka jawaabi kari weyso su'aalaha oo adag awgii. haddii aad jeceshahay muuqaalada noocan oo kale, like saar muuqaalkan, oo haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir adoo subscribe saaraya channelka si aad u hesho muuqaalo badan oo kuwan oo kale ah. aan bilowno muuqaalka. nin ayaa lagu dilay xafiiskiisa. dadka lagu eedeynayo dilkaasna waa 4 qof oo kala ah Erikson, Maggie, Jason iyo Benny. kaalandar ama warqadda bilaha sanadka ku qoran ayaa laga helay ninkii la dilay agtiisa, waxaana lagu qoray nambarada kala ah 6, 4, 9, 10, 11. nambaradaasna laguma qorin qalin caadi ah, waxaa lagu qoray midabka dhiigga ah. haddaba waa kuma dilaaga? dilaaga waa Jason. haddii aan u tixgelino nambarada la bixiyey oo ah 6, 4, 9, 10, 11 inay yihiin nambarada bilaha ee sanadka, markaas waxaan si fudud ku heli karnaa dilaaga. 6 oo u taagan bisha 6aad ee sanadka oo ah June, 4 oo u taagan bisha 4aad ee sanadka Abriil, 9 oo u taagan bisha 9aad ee sanadka September, 10 oo u taagan bisha 10aad ee sanadka October, 11 oo u taagan bisha 11aad ee sanadka November. markaas jawaabtu waxay noqonaysaa Jason, waxaana laga keenay xarafka ugu horeeya ee bilahan. dadku waxay ii iibsadaan si ay wax u cunaan, laakiin weligood ima cunin. haddaba kumaan ahay? jawaabta waxaan ahay saxan. dadku waxay ii isticmaalaan inay igu cunaan cuntadooda, laakiin ima cuni karaan. isku day inaad ogaato qaladka ku qarsoon sawirkan. inkastoo wax walba u muuqdaan inay saxan yihiin, runtii qalad ayaa jira, laakiin ma aha tirooyinka, balse qaladka ayaa ah su'aasha. haddii aad si fiican ugu fiirsato, qaladka jira waa ku celcelinta ereyga soo oo 2 mar la soo celiyey. haddii gerigu 2 indhood leeyahay, daanyeerkuna 2 indhood leeyahay, maroodiguna 2 indhood leeyahay, imise indho ayaanu leenahay? jawaabta waa 4. halkan su'aasha waxaa la isweydiinayaa inta indhood ee aanu leenahay, markaa waxay la micno tahay qofka su'aasha weydiinayo oo aniga ah iyo qofka jawaabta bixinayo oo adiga ah. waxaanu leenahay 4 indhood. si fiican u fiiri sawirka kuu muuqda, imise xayawaan ah ayaad arki kartaa? haddii aad la mid tahay dadka intiisa badan, waxay u badan tahay inaad dhahdo 4 xayawaan, kuwaas oo kala ah ey, dameer, maroodi iyo bisad. balse xaqiiqda dhabta ahi ayaa ah inay yihiin 6 iyo 10 xayawaan, sida aad ka arki karto tilmaamaha shaashadda ka muuqda. midaan ma ku wareertay? sawirka aad ku aragto shaashadda waa cover album, kaasoo ah mid ka mid ah albumyada ugu iibinta badan ee Beatles. inkastoo sawiradan ay aad isugu eg yihiin, haddana waxaa jira kala duwanaan ama farqi u dhexeeya sawiradan. haddaba maxay ku kala duwan yihiin labadan sawir? guud ahaan waxaa jira 5 farqi, kuwaas oo dhammaantood calaamadsan si aad u barbar dhigto jawaabtii aad bixisay. markaa haddii aad aragtay dhammaan 5tan kala duwanaansho, run ahaantii waxaa tahay qof caqli badan.
bakayle ayaa u socday dhinaca webiga. intii uu sii socday wuxuu arkay 6 maroodi. 6dii maroodina waxay arkeen 2 daanyeer oo webiga u socda. daanyeer kasta wuxuu gacanta ku hayaa hal xayawaan. imise xayawaan ayaa u socda webiga? jawaabta waa 5 sababtoo ah bakayle ayaa u socday webiga ee ma aha 6 maroodi. 6dii maroodina waxay arkeen 2 daanyeer oo u socda dhanka webiga. daanyeer kastana wuxuu gacanta ku hayaa hal xayawaan. sidaa darteed tirada xayawaanada u socda webiga waa bakayle lagu daray 2 daanyeer lagu daray 2 xayawaan ee daanyeerada gacanta ku siteen. sidaa darteed jawaabtu waa 5 xayawaan. habeenkii ayay soo baxaan iyaga oo aan loo yeerin. maalintiina way lumaan iyaga oo aan la xadin. haddaba maxay kula tahay jawaabta? jawaabta waa xidigaha. xidiguhu waa waxa habeenkii soo baxa iyaga oo aan loo yeerin. maalintiina waa la waayaa iyada oo aan la xadin. maalin walba waan xiiri karaa timaha, laakiin garkaygu wuu joogi doonaa. haddaba kumaan ahay? jawaabta waxaan ahay tima jare. waa la ijibin karaa, waana la idhaawici karaa, waa la ixadi karaa, waa la isiin karaa, oo waa la ilaalin karaa. mar waan kululaadaa, marar kalena qabow ayaan ahay. haddaba maxaan ahay? waxaan ahay wadnaha. mar waa la ixadi karaa, marna waa la idhaawici karaa. marna qof ayaa la isiin karaa, marna waan kululaadaa, marna qabow ayaan ahaadaa. haddaba jawaabta waa wadnaha.